habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee BBC London qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyn rag shabaab ah ayaa adoonsaday oo kufsaday markii ugu horeysay dumar Kenyan ah oo soo baxsaday ayaa ka waramaya noloshoodii xeryaha al-shabaab Donald Trump ayaa sheegay inuu aad uga walacsan yahay sirta Mareykanka bixiyeen ee ku saabsan weerarkii Manchester taasi oo keentay in booliiska Britain ay xogtii ka jiraan waxaanu la kulmi doonaa farshaxanista reer Zimbabwe ah oo qashinkii ka dhigaya farshaxan isla markaana lacag wanaagsanba ka samaynaya baaritaan ay samaysay BBC-da ayaa lagu ogaaday in al-shabaab ay ganacsi hoose oo dumarka Kenya ah ay wado oo dhibaatooyin iyo galmo adoonsinimo lagu geysto Soomaaliya tobanaan dumar ah oo soo baxsaday ayaa markii ugu horeysay ka waramay sheekada argagaxa leh ee xeryaha al-shabaab muuqaalkeedu waa 19 jir laakiin gabadhan oo loogu yeedho Faith waxa niyadeeda ka buuxa xusuus xun oo adoonsi waxa laga kaxaystay Mombasa waxaana loo ballan qaaday shaqo laakiin waxay gashay adoonsi al-shabaab waxaana la siiyay biyo laakiin waxay u ekaayeen biyo lagu daray daroogo ma ogeyn markaa kadib wixii dhacay waxaan arkay anigoo qol ku jira dareen ma jirin laakiin waxaana lagu kufsaday qolka dhexdiisa waxay xilli habeena ku dhashay meel kayn ah shaqo culus ayay muddo 3 sano ah hayeen kadibna waxa soo badbaadiyay nin oday oo dhakhtar ah Faith kaligeed ma aha ugu yaraan 20 dumar oo kaloon arkay waxa loo kaxeeyay Soomaaliya iyagoon rabin waxayna la kulmeen dhibaatooyin iyo adoonsinimo dumarkani waxay ku dhiiradeen in ay habeen soo baxsadaan waxay ka hadleen in ay maalmo u soo lugeynayaan kaymo cidhiidhi ah taas oo aanu aaminsanahay inay tahay boni waa kayn jiq ah wayna adagtay in la ilaaliyo laakiin kor waxaanu ka aragnay dariiqyo yaryar oo naloo sheegay in ay mindidiintu u isticmaalaan safarkooda Kenya iyo Soomaaliya laakiin dumarkan oo dhani Soomaaliya ma tagaan iyagoo la qasbay Sarah waxay kooxda kula biirtay saygeeda oo al-shabaab ka mid ahaa laakiin markii la waayay way baqatay waanay ka soo baxsatay In my camp there are women who were sent to xeradeena waxaa jira dumar loo soo diray inay qortaan dumar kale oo ay u kaxeeyaan dhinaca Soomaaliya si loo sii kordhiyana uur ayay yeeshaan kadibna caruur ayay dhalaan so that they can get pregnant and have their own children intii aan la kulmay waqtiganu baaritaanka wadnay wax yar ayay ka noqon karaan dumarka la kaxaystay balse maamulku xitaa ma oga tirada dumarka ee la haystayaasha ah I cannot be able to give you the numbers because tiro ma sheegi karo sababtoo ah arrimahan waxa loo sameeyaa si qarsoodi ah qofna uma soo baxo in uu sheego in la kaxaystay ama shaqo laga siiyay Soomaaliya marka dadka way qariyaan given a job in Somalia so people hide waxay ka baqayaan in la midabta kooro mana aaminayaan maamulka iyadoonay qofna caawinin dhibanayaashu waxay u nool yihiin si qarsoodi ah dumar badan oo ku nool gobolka xeebta ee Kenya waxay u nugul yihiin in si fudud loo kaxaysto booliiska Manchester ayaa joojiyay in macluumaadka ay la wadaagaan Mareykanka kadib markii saxaafadda Mareykanka loo gudbiyay xog ay bixiyeen waxa kale oo booliisku ay sheegeen in ay ilaa iyo hadda dadkii ay qabqabteen ay yihiin qaar macno weyn ku fadhiya isla markaana ay heleen qalab muhiima boqoradda ayaa iyana tagtay Manchester si ay u soo booqato dadkii ka badbaaday weerarkaasi Qalib Xasan Baaruud ayaa ka waramaya booliiska ayaa maanta hawlgallo iyo dhaqdhaqaaq degdeg ah ka wada Manchester askar hubaysan ayaa xirtay wadooyinka agagaarka iskuulkan khubarada furfurta qaraxyada ayaa si degdeg ah u soo gaadhay goobta kadib markii la helay boorse laga shakiyay 3 maalmood oo adag ayay u ahayd shaqaalaha iyo saraakiisha booliska waxaana ku heliyay booliska ka hortaga argagixisada iyo shaqaalaha sirdoonka waxaan doonayaa inaan dadka u xaqiijiyo in xiristii aan samaynay ay tahay mid muhiim gaar ah leh
guryihii aan bilowga baarnayna waxaan ka helnay walxo aan aaminsannahay inay muhiim u yihiin baarista. wargeyska New York Times ayaa qoray faahfaahin ku saabsan qaraxii oo ay hoos uga soo xigteen sirdoonka Mareykanka. warbixintan waxaa lagu sheegay in bombka laga sameeyey biro iyo baytari aan caadi ahayn. waxaa la aaminsan yahay in walxihii laga sameeyey qaraxa ay ku salaysnaayeen hydrogen peroxide, laakiin waxaa cadhadheliyey sii daynta sawirradii sirta ahaa ee laga qaaday goobta. booliiska ayaa joojiyey macluumaadkii ay la wadaagi jireen Mareykanka, iyagoo sheegay in Mareykanku jabiyey kalsoonidii. maanta waxaa Liibiya lagu xiray Cabaydi Rabadaan oo aabbo u ahaa ninkii isqarxiyey Salmaan Cabaydi. shaki kuma jiro in hadda booliisku aaminsan yihiin inay jiraan shabakado argagixiso ah, laakiin weli lama hayo xogta oo dhan, gaar ahaan sidii bombkii qarxay loo sameeyey. faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaasi Manchester iyo warbixino kaleba waxaad ka heli kartaa boggeena bbcsomali.com adigoo si fudud uga galaya moobilkaaga. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta. Donald Trump ayaa u sheegay hogaamiyaasha NATO magaalada Brussels in canshuur-bixiyaasha Mareykanku ay ku leeyihiin lacag aad u badan. wuxuu cusboonaysiiyey baaqiisii ahaa inay kor u qaadaan qarashka difaaca. madaxweynaha ayaa yidhi waa in xubnaha ay bixiyaan lacag dheeraada ee xagga argagixisada, socdaalka iyo ruushka. wasiirada dalalka shidaalka dhoofiya ee OPEC ayaa sheegay in ay ku heshiiyeen in ay yareeyaan wax soo saarka ilaa bisha Maarso. go'aan lagu gaabinayay wax soo saarka si qiimaha kor loogu qaado 5 bilood ka hor ayaa guultaraystay. sidoo kale maanta Afrika dalka shidaalka ugu badan soo saara Equatorial Guinea ayaa lagu daray ururka OPEC. aqalka cad ayaa beeniyey in eedeymo miisaaniyadda oo loo soo bandhigay oo ku saabsan madaxweyne Trump in ay ku jirto xisaab qaldan. xogayihii hore ee lacagta Larry Summers ayaa sheegay in qorshaha qarashka ee $2 trilyan ay 2 jeer tahay, iyadoo la isticmaalay in la jiro canshuuraha iyo in hoos loo dhigo deynta. laakiin agaasimaha miisaaniyadda aqalka cad ayaa sheegay in uusan waxba ka bedelayn xisaabtiisa. New Zealand ayaa si guul ah gantaal hawada sare ugu dirtay, kaasi oo laga ganay goobtii ugu horeysay ee si gaara loo leeyahay. waxaa jasiirad waqooyiga ku taal ka diray shirkad Mareykan oo la yiraahdo Kiwi, taasi oo rajaynaysa in lacag ay ka samayso suuqan soo kobcaya ee hawada sare. qulubku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee sababa xanuunada iyo naafada. boqolkiiba 30 daawooyinka waxba kama taraan. saynis yahanada dalkan Britain ayaa isku dayaya bal in ay hab cusub ay ku eegaan, iyagoo difaaca jidhka la eegayo isla markaana laga hortagayo unugyada inay gubtaan. Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa inoo haya. saynis yahanadan ka tirsan King's College London ayaa waxay isku dayayaan inay ogaadaan in caafimaadka jidhku ay saameyn ku leedahay sida qofka maskaxdiisu ay dareento ama cilmi nafsiga marka laga baxo, iyada oo dad fara badan uu qulub ku dhaco, taasi oo laga yaabo in qulubkaasi ay sabab u tahay habka difaaca jidhka oo aan u shaqaynaynin. haddii aan caddayn karno calaamadaha xariijimaha ee noo ogolaanaya inaan saadaalino bukaanka qulubka qaba ee daawada ka jawaabaya, warka fiican ayaa ah in ay jirto daawooyin badan oo wax ka tari kara qulubka. waxa ay baadhayaan bal in dhiigga iyo dheecaanada jidhka ku jira inay qayb ka noqon karaan marka ay noqoto qofku inuu maskaxda ka jirrado, taasi oo ay doonayaan inay ku ogaadaan in mararka qaarkood uu dareemayaasha jidhku ay gubtaan. waxay rajaynayaan inay caawiyaan Michelle Whitton dadka la midka ah. walbahaarku waxaan u malaynayaa inuu weligay hayay laga soo bilaabo intaan dhallinyaro ahaa ilaa maanta. ma og tahay, wuxuu ahaa qayb ka mida noloshayda. wuxuu ahaa mid xadiday awooddayda iyo waxqabadkayga. Michelle waxay ku deeqday dheecaan jidhkeeda ka mid ah si loo baadho, iyadoo la mariyey qalabka baadhista. waxaana aad loogu fiirsanayaa bal difaaca jidhkeedu siduu yahay, in marka uu gubto uu saameyn ku yeelan karayo maskaxdu sida ay u shaqayso. waxaana maalgelinaya mashruucan oo la yidhahdo Wellcome Trust, waxaana hogaaminaya Ed Ballimore. waxaana uu sheegay in dawooyinka qaar loo isticmaalo rheumatismka oo kale. walwalku wuxuu dhaqaajinayaa habka difaaca jidhka. waa jawaab nafsi ah oo timaada xilliga halista. si kastaba, dhibaatada hannaanka nolosha wuxuu si joogto ah u kicinayaa habka difaaca jidhka. taasi waxay saamaynaysaa maskaxda. Michelle oo kale, haddii la helo in cudurkan ku dhaca maskaxda aanay ahayn wax maskaxdu kaliya ka imanaya ee jidhka ka imanaya qaybihiisa kale. tan waa wax weyn, waa isbeddel weyn.
hubaalna waan la dagaalami doonaa takoorka aan la kulanno. BBC-da ayaa ogaatay in Manchester United aanay samayn doonin xaflad dabaaldega kadib guushii xalay ee koobka horyaalka ee Europa. Naadiga ayaa sheegay inaanay habboonayn kadib weerarkii Isniintii ka dhacay magaalada. Habeen qiiro leh ayuu ahaa kii xalay ee Stockholm oo ku bilowday 1 daqiiqo oo aamusnaana. Goolasha Paul Pogba iyo Henrik Mkhitaryan ayaa guusha u xaqiijiyay kooxda Jose Mourinho oo 2-1 kaga adkaatay Ajax. waxay u eg tahay in mustaqbalka Wayne Rooney ee ciyaaraha caalamiga uu soo afjarmayo kadib markii laga reebay liiska kooxda England u safan doonta weeraryahankan reer Manchester United oo ah ninka England ugu gool dhalinta badan ayaa waxaa ka tagay maamulihiisii Gareth Southgate ciyaaraha June ay la leeyihiin Scotland iyo Faransiiska laakiin Marcus Rashford-ka United ayaa dib loogu yeeray. ciyaaryahanka difaaca iyo weerarka Chelsea ee Victor Moses ayaa isna ku amaanay tababare Antonio Conte in uu xirfadiisa u keenay kalsooni iyo waliba farxad. ciyaaryahankan Nigerianka Moses ayaa kaga soo biiray Chelsea kooxda Wigan sanadkii 2012 laakiin waxa deyn uu ugu diray Liverpool, Stoke iyo West Ham tababarihii hore ee Jose Mourinho. Zimbabwe waxay dadka lacag ka sameeyaan qashinka. waa nooc ka mid ah qaababka dalku uu ku doonayo inuu wax kaga qabto qashinka faraha badan ee halkaas yaal. wariyaha BBC-da Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa. waxa uu awood u leeyahay inuu arko kaydka muhiimka ay ku jira buurta qashinka. toddobaad walba Royd Bisiwasi waxa uu aadaa goobaha qashinka lagu daadiyo iyo maqaayadaha si uu u soo urursado qashinka oo haddii kala godad lagu shubi lahaa. shaqada ayaa laga eriyay maadaama uu naafo yahay. waxa uu ka sameeyaa qashinkaasi waxyaabo qurux badan taa ayaana u suuragelisa in qoyskiisa ay helaan nolol maalmeedka. waxaad wax walba ka samayn kartaa burjikooyinkii hore. waxaad u isticmaali kartaa garidan. waxaan u isticmaalnaa fiilooyinka qaboojiyaha duugga ah. qoyska waxa uu qashinka ka sameeyaa farshaxan alaabaha ilmaha ay ku cayaaraan. dalabkan oo ka kooban 20 gari ah ayaa waxa loo wadaa Mareykanka. waxa lagu iibinayaa $600. waa lacag ka badan celcelis ahaan mushaarka caadiga ee bishii halkan laga qaato. balse shaqadan ayaan mar kasta ahayn mid la qadariyo. waxaa jirtay mar aan dhalooyinka la xuuray aan ka soo ururinayay goob ay xaflad aroos ka socotay. qaar ka mid ah dadkii joogay arooska ayaa igu qoslay. kama xishoono iminka in aan ururino qashinka. shaqooyinka ah ururinta qashinka iyo dib u warshadayntiisa ayaanan ahayn mid hadda u gaar ah darbijiifta. waxaana taas sabab u ah shaqo la'aanta baahsan iyo qashinka oo meel kasta yaala. waxaana si tartiib ah loo fahmayaa dib u warshadaynta qashinka. bandhigan ayaa dhalooyinka caagadaha ah waxa loo isticmaalayaa in laga sameeyo nal iyo kuul. waxa uu qayb ka yahay barnaamij loogu magac daray lahow qashinkaaga taas oo la isugu dayayo in dadka reer Zimbabwe ay ka fikiraan yaraynta qashinka. Lori Macpherson ayaa u aasaastay barnaamijkan si ay ugu qasabto dadka Zimbabwe inay mas'uul ka ahaadaan qashinkooda. farshaxaniistayaasha waxay soo ururiyaan waxyaabaha qashinka ku jira oo waxay u bedelaan farshaxan dib loo gato. shaqada way wanaagsan tahay laakiin dadka u dhaqaalahooda hooseeyo ma awoodaan in ay iibsadaan waxyaabaha aan samayno. marka waxaan u baxsannaa xiriirka aan la samayno dadka dibadaha ku nool sida dalka Spain. dad fara ku tiris ah ayaa awooda. dadka reer Zimbabwe waxa ay soo saaraan nuskiilo qashin ah maalin walba. tiradaasna waa mid sii kordhaysa. hase yeeshee dadka deegaanka u ololeeya ayaa rajaynaya in fariinta ah in qashinka lacag laga samayn karo ay bedeli doonto qubidda qashinkaasi. waa wax la yaab leh. ugu dambeyntiina ma maqashay football iyo golf balse ka waran foot golf. bal eeg UK oo la ciyaaraysa Mareykanka. ciyaartan aadka loo aqoon ee koobka la yiraahdo Janssen tartankan waxa ka qayb galaya gabdhaha iyo wiilasha foot golferska la yiraahdo ee ugu wanaagsan labada dal. waxaana qaaday ugu dambeyntii koobka UK. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaan bloggeena bbcsomali.com. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa dhammaantiinba habeen wanaagsan.